daaroodna ma aha, hawiyana ma aha, isaaqna ma aha, dad yaroo musaalimiin ay ahaayeen, dad yaroo musaalimiina oo tijaarta isaga jira oo inu marra ku sheegno waa yamaniyiin, marra waa Portugiis, marba meel baynu ku daadinaa soo maha, mar dowlatul Cumaan bay soo raaceen. wuxuu ka sheekaynayay markii ay dowladdii Soomaaliya ay duntay cankii loo galay ee hablahoodiina loo galay, hablahoodii sidii loogu hor kufsaday. goorma iga sheekaynaya nin Soomaaliyeed baan ahay, dowlad Soomaaliyeed ku tirsanaa, wuxuu iga sheekaynaya anoo gurigiisa jooga, uu i qadaysiiyey, uu galaas shaha ii soo shubay, keegna ii soo dhigay, uu i sharfay. ayuu leeyahay tay Soomaali nagu samaysay, hablahaygii bay kufsadeen, xoolahaygii bay qaateen, raggaygii bay laayeen. maca daalika buu yidhi waa walaaladay waan cafiyey, waa walaaladay waan cafiyey. subxaan allah, wallahi meel bay dhaqaaqday markii intaa yidhi, meel bay dhaqaaqday. waayo nin intaasoo dhan lagu sameeyo madluuma, ila hadduu dhaalim yahay ama cadow, laba qolo isku dhacay ama laba reero isku dhacay ama laba dowlado isku dhacay, waxaan odhan lahaa waa natiijat alxarb, waa wax yani waa incomekii, waa is a normal circumstance, waa natiijadii dagaalka. laakiin dad iska musaalimiin oo lasoo duldegay ayaa saa lagu samey, markaasuu leeyahay walaaladay waan cafiyey, waananu cafinay, oo maanta waanu ka guursanaynaa, waynaga guursadaan, waanu la degnay, Kenyaanu la joognaa, meel kale waxaynu la joognaa, Tanzaniyan la joognaa. alxamdu lilah. hadday kuwaasi ina cafiyeen, war maxaynu isu cafi waaye, isunagin isu cafi weyne, maxaynu inaku isu saamixi weyne, maxaynu u heshiin weyne walaalayaal, maxaynu nabar mar inagu dhacay. anigu ma diidayo, yani subxaan allah, ninkii la odhan jiray Nelson Mandela nin madow buu ahaa, 10 sannadood buu ku jiray jeel, aan loo ogolayn inuu qof bini aadana uu taabto. yani min tabiicati bani aadam wala ulfa, inuu dadka taabto, inuu walaalkaa salaamo. yani qofka marka aad jeceshahay waad soo dhawaysaa, waad salaantaa, waa nooc min emotion, waxaad tusaa inaad walaalkaa jeceshahay. markaad aad kasii jeceshay waad laabta u saartaa, markaad kasii jeceshay meesha jirkaaga ugu dareenka badan waa dibnaha, waad shumisaa, waad dhunkataa. soo maha, way dhunkana carruurteenna, wayna shumin, waa meesha ugu dareenka badan, waa jacayl, waa raxma. soo maha, yani marka qofkii sidaa ahaa ee muslimka ahaa ee intaa inagu sameeyey, waxaynu u baahan inaynu ninku markaa walaalkeenii kii dhaalimkiisaa ku sameeyey buu cafiya. famaa baalaka anta ya cabdallah, famaa baalak anta ya cabdallah. waxaanu leenahay walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga qaado waxaan laabta ku jira. Nelson Mandela markaa wuxuu yidhi cadhadu iyo xasadku, yani wuxuu yidhi it's like a poison that you drink and you hope it will kill your enemy. u fiirsa siduu xallilay. wuxuu yidhi waa sun ad adigu cabbaysid, aanad rajaynaysid inuu walaalkaa, inuu qofkaa uu dilo kale, cadowgaaga. adigii waa suntii cabbay, waxaad leedahay suntan anigu waxaan u cabbaya ninkaas aan u cadhaysanahayo inaan dilaabaan doonaya, aduu ma isdilaya buu yidhi. ma dhacayso, wayna iswada dulminay, waa la iswada laayay, waa la iswada khilaaf. Soomaalidu asalkeedu waxay ku salaysnayd reer hebel baa reer hebel ku duulay, reer hebel baa reer hebel dulmay, reer hebel baa reer hebel laayay, waa la iskala wacaynkaas ahayd. wahaakada alxayaa. waxaynu u baahanay walaalayaal marka, waana nuqdada afaraad, inaan idhaahno cafa allahu camaa salaf. maxaynu maanta qabsan karnaa? ninkaa Mandela markuu qabsaday waddanka South Africa, kelmad buu cajiiba, wuxuu yidhi forgive but do not forget. forgive but do not forget.
يعني forgive waxa weeye way hadan ku caroodo maanto dhan mid ma gaarino ilaahay baa kule oo nabiga bay noo sheegay labada muslimiin ay soo carooda amalkooda iyo ducadooda iyo salaadooda lama eegaba ilaahay maba eego Nelson Mandela wuxuu ku leeyahay forgive but don't forget معنى ذلك wuxuu ga jeeda عفي قفك مسلم كأكله قفك وحكوا سمية عفي قال يا مسلم عفي سو قالوا كي جدا يدك كده عباس ده أقول لهم وكذا لكن أنا وحنا ورا المسلمين تي ضدك المسلمين ده هاي ورا الله ده يكبوق الدمي اسمه علي بن أبي طالب حجري إخواننا بغوا علينا وورا الله ده ونبوق الدمي وورا الله ده نبوق الدمي لكن don't forget وقت شيء ده مركان هكون عنا the same mistake قالت كي هرا الله قال هكون علينا وحيكون نقولنا سامركا the first point عن شيء أهيد وحين أباهني إني نلني معنا تخطيط ونعكسن علماء دي هذا يقفر ديان جزاهم الله خير فردهم بقلبنا إلهي سبحانه وتعالى هاو بركايو إن شيخ دكور يتينيا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله